waxaa jira magacyo taariikhda ku qoran sidii calaamad aan la iloobin, magacyo aan kaliya la xusin balse la xasuusto, laga hadlo loona dabaaldego. Lyudmila Pavlyuchenko waa mid ka mid ah magacyadaas. Waxay ahayd haweeney aan cabsida u aqoon rasaasta oo markasta ku fikiraysa sidii u badbaadin lahayd dalkeeda. taariikhdeeda waxay bilaabatay sidii gabar dhalinyaro ah oo riyooyin leh, balse waxay ku dhamaatay sidii astaan geesinimo aan la dafiri karin. waxaase u dhaxeeyay dagaal, dhiig iyo go'aan ay adag tahay in cid walba ay qaadato. marka aad maqasho magaca marwadii geerida, maskaxdaada waxaa ku soo dhacaya muuqaal aan caadi ahayn, qof leh adeeg iyo indho sidii falaadhaha u ciyaara. Lyudmila ma ahayn halyey filin, balse waxay ahayd mid si xeel dheer ugu fikirtay dagaalka, iyadoona saacado, maalmo, xitaa toddobaadyo ku sugnaatay hal meel, sugaysa hal fursad. tirada 309 qof ayay ku dishay toogasho, taasoo ka dhigtay haweeneydii ugu waxqabadka badneed ee isneebar ah taariikhda casriga. waxay ahayd sawir nololeed ka turjumaya adkeysi, go'aan iyo rabitaan aan la jebin karin. laakiin waxaa kasii taariikhi ah ma ahan tirooyinka ay gaartay ama hubka ay sidatay, waa sidii ay u bedeshay sawirka haweenka ee dagaalka. kadib dhaawac soo gaaray, waxay u safartay dunida inteedii kale oo ay la kulantay madaxda awoodda lahaa ee waqtiga, iyadoona wada sheekooyin jiritaan, hiigsi bulsho iyo isku xirka biri. waxay noqotay astaan u taagan xoogga riyada, dhiirigelinta qaranka iyo rajo nololeed qarniyo badan. taasna waa sababta magaceeda loo xuso. waa idin salaamo daawadayaal, magacaygu waa Xaliimo Daawud. intaa gudaha u galin warbixinteeni maanta, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe yidhaahdo janalka, laagtanaad ii saarto. janalkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon, dambiyada qarsoon iyo xogaha caalamka. inoo bilaabo markaan sheekadeeni maanta. Lyudmila Pavlyuchenko waxay ka mid tahay shakhsiyaadka taariikhda sida gaarka u xusto, maahan kaliya sababta iga soo muuqatay dagaalo nafhurid ah, balse sida ay u bedeshay fahamka dunida ka haysatay doorka haweenka. waxay dhalatay xilli adduunka isbedel weyn ku jiray, halkaas oo dagaalo waaweyn iyo loolan siyaasadeed ay saameeyeen nolosha malaayiin qof. waxay dhalatay sanadkii 1916 iyadoo ku kortay jawi caadi ah oo aan dagaal u ekayn. caruurnimadeedii kuma jirin riyooyin hub ama dagaal, balse waxay ahayd gabar jecel waxbarashada, gaar ahaan taariikhda. tani waxay muujinaysaa in qofka mararka qaar uusan dooran dariiqiisa, balse duruufaha ay isbedelaan. intii ay jaamacadda ka baranaysay taariikhda, waxay muujisay dabeecad adag iyo karti ay ku wajahdo caqabadaha. waxbarashadeedii waxay siisay faham weyn oo ku saabsan dagaaladii hore, hogaamiyayaasha iyo sababaha colaadaha keena, taasoo markii dambe ka caawisay fahamka dagaalka. markii dagaalkii labaad ee adduunka qarxay, midoogii suufiyiinta waxaa wajahday khatar jiritaankiisa ah. xilligaas dad badan ayaa ka cabanayay inay dagaalka ku biiraan, halka Lyudmila ay si ikhtiyaar ah u qaadatay go'aan halis ah oo ah inay safka hore kasoo muuqato. inay haweeney tahay waxaa loo arkayay inaysan ku habbooneyn dagaalka tooska ah. si kastaba ahaatee, waxay diiday shaqo kasta oo fudud, waxayna ku adkeysatay inay noqoto toogtay isneebar. go-aankan wuxuu ahaa mid ka dhan ah caadooyinka bulshada iyo fikirka ciidanka labadaba. dagaaladii ay ka qayb gashay waxay si degdeg ah ugu noqotay magac la yaqaan. waxay la kulantay xaalado aad u adag, iyadoona mar walba muujinaysa dulqaad, feejignaan iyo xisaabtan maskaxeed ee sare. waxqabadkeedu wuxuu noqday mid ay hogaamiyayaasha ku qasbanaadeen inay qiraan. tirada askarta ee loo diiwaangeliyey inay dishay waxay gaartay 309, taasoo ka dhigtay haweeneydii ugu waxqabadka badneed ee isneebar ah taariikhda casriga. tirooyinkaasi ma ahayn ujeeddo ay ku faanto, balse waxay u arkaysay waajib qaran. magaca marwadii geerida ee loo bixiyey wuxuu noqday astaan cabsi abuurtay, islamarkaana dhiirigelin u noqotay askarta suufiyiinta. warbaahinta caalamka ayaana aada u hadal haysay. kadib markii ay dhaawac kasoo gaaray dagaalka, waxaa laga saaray safka hore. inkastoo tani ay u muuqan karto nasasho, haddana waxay ahayd marxalad kale oo mas-uuliyad ah, maadaama ay noqotay qof matala dalkiisa. sanadkii 1942 waxay safar diblomaasiyadeed ku tagtay Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska. safaradan ujeedkoodu waxay ahayd in la xoojiyo xiriirka xulafada iyo in dunida loo muujiyo xaqiiqda dagaalka. aqalka cad ayay gashay, waxayna la kulantay madaxda ugu sareysa Mareykanka ee xilliga,
hadaladeedii furan iyo kalsoonida ay ku hadashay waxay jibiyeen sawirkii hore ee laga haystay haweenka dagaalka ku jira. Dagaalka kadib waxay ku laabatay nolol aqooneed, waxayna dhameysatay waxbarashadeedii, waxayna noqotay cilmi baari taariikheed iyadoona si gaar ah diiradda u saareysay waayo aragnimada askarta iyo qiimaha xasuusta dagaalka. waxay sidoo kale ka shaqeysay difaaca xuquuqda askarta dhaawacantay iyo xoojinta wacyigelinta bulshada. Tani waxay muujinaysaa in doorkeeda uusan ku koobnayn dagaalka oo kaliya balse uu ahaa mid bini'aadanimo. geerideedii sanadkii 1974 maysan damin saameyntii ay ku lahayd taariikhda. buugaag, filimaan iyo daraasado badan ayaana laga sameeyay nolosheeda, taas oo caddeyn u ah raadkii ay reebtay. waxay astaan u noqotay geesinimo, adkeysi iyo jebinta xayndaabaha bulsho. sheekadeedu waxayna xasuusinaysaa in awoodda dhabta ah aysan ku xirnayn jinsi ama da, balse ay ku jirto go'aan adag iyo u heelnida mabda'a. taariikhyahano badan ayaana xusay in guusha Lyudmila aysan ku imaan kaliya xirfad toogasho, balse ay ku dhisneyd tababar maskaxeed iyo adkeysi nafsi ah. waxaa la sheegay in mararka qaar ay saacado ama maalmo ay ku jiri jirtay meel isku mid ah iyadoo aanan dhaqdhaqaaqin si ay u sugto hal fursad oo sax ah. dulqaadkaas iyo xakameynta nafta ayaana noqday hubkeedii ugu weynaa, taasoo ka dhigtay mid ka duwan isneebarada kale ee xilliga. qoraalo laga helay askar ay wada dagaalameen ayaa muujinaya in ay sidoo kale ahayd macalimad iyo hagto. waxay kaloo ay tababartay isneebaro kale oo badan, rag iyo dumar ah, iyadoona baraysay xeelado ay ka mid ahaayeen isqadarinta, akhrinta dhaqdhaqaaqa cadowga iyo goorta ay tahay in rasaasta la rido iyo goorta ay tahay in laga aamuso. saameynteeda sidaas awgeed kuma koobneen tirada ay dishay. daraasado dambe ee la sameeyay sawirka warbaahinta ee Lyudmila ayaa muujinaya inay noqotay astaanta dagaalka maskaxda. ma ahayn oo kaliya isneebar, balse waxay ahayd fariin nool oo muujinaysa awoodda rabitaanka aadanaha marka uu wajahayo halis jiritaan.